taliye hore ciidamada militariga dalka Soomaaliya General Maxamed Nuur Galaal ayaa markii ugu horeysay wareysi khaas ah uu siiyay telefishinka Hon Cable TV isagoo ku sugan caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland waxa uu ku sheegay oo faahfaahin kaga bixiyay sababta keentay in caasimadda Hargeysa uu socdaal ku yimaado waxa uu sheegay in kulan uu qaatay madaxweyne Axmed Maxamed Silayo taliyaha ka hadlaya ujeedada socdaalkiisa waxa uu yiri imika laba walxaad boo way ama aan saddex ku dhaho waa marka horeysay horta Hiroshima inaan mar kale arko say u taalo weerarey sida magaaladii la burburiyay loo galay bal siday noqotay waa reebay alxamdulillah waa weynaatay waa dhisantay waa kana laba problem yar yar ay qabtaa biyo iyo wadooyin hadaas ay qabtaa haba biyo soo socdana la igu yiri de ma qarnay waxay tahay labadaas haday xaliso it's okay waa magaalo weyn oo xasimada laakiin labadaas intay taagan yihiin waxba kala dhiman taas mid ay ahayd mid labaadna waxay ahayd gabar aan dhalay halka lagu guursaday intaasna inaan arooskeeda timaad ka qayb galo cid bay iska aragteen xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda ها ماشي أسر رئيساتي مدحوينها سرقنا واي دراد بانو تجي هل أبو حلي واي ما أنا قال كان فيري هذه كان أنتي نانو تشرين أي أنا أقول غير هرجسها ولا جاي كان أنت كلنا هذا كل ما لقي هنا أنا هات أنا نقول مرنا أنا ماشي حمانتي إذا كشغين يدقال كذا الكونتراريو ما ركتي maxamed saad waxyaalaha oo buulka ii galiyo waxa kamid ah dareenkii aan qabay oo halka ka qabay General Maxamed Nuur Galaal taliye hore ciidamada militariga dalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu si kul ambaaray qaabkii madaxweynaha dalka Soomaaliya waa sida hadalka u dhigay uu bumbuuniyay taariikhda General Maxamed Ali Samatar generalka ka hadlaya waxa uu yiri nin la dhihi jiray Samatar ayaa dhintay حمر بالله ماشي واشنطن بالله قاضي حمر بالله كاني وحال يروى جيسي قرنك هيرو ناشونال هيرو قرنيسا ويكشكين كوا سراكينا ماشي انت لا سوفريس وحال وحي اوغيان لارك اي وحي كشكين وقونتيسي يجيسي نمديسي حق جيسي نمدي لا اله إلا الله مدرو ما يغني واحد هيرو ولا قدي ماشي حرنتي حوق دالك الواس نكان حسن الشيخ اللي يرادا وطا غريسا نصورو انه ما انا كليه انه ما ركتي بين بونبونيني وبين بونبوني وحو كتعدي وميل اوغا دحاي dadkii oo ninkaas dhibaatay intuu habweynaatay ayuu meel uga dhacay waana ku sheegay ninka qaranka duubiyay wareysigan oo dheer waxa uu qayb ka yahay barnaamijka ka baxa telefishinka Hon Cable TV ee Xusureeb waxaana soo saaray wariye Maxamuud Cabdi Ducaale waxaana ku daawan doontaan maalmaha soo socda isagoo dhameystiran